بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي حبيباتي قالياتي دمان وإن السلامة meel kastoo dunida daafeed uga nooshihiin waa mar kale walaashin filsanka qeyrkeeda la jecel jimco wanaagsana idin leeyahay dhammaan meel kastoo joogtiin maasha allah tabaarak raxmaan jimcadan aad iyo aad u faraxsanahay indhahayga waxay ku farxaan arkeen maasha allah markaa arkay masjidka dadka masaakiinta ah ee sida xaq darrada ah loogu dilay ee ninkii mataqaanaaye ummadda argagixiyey oo ku dhameeyay ilmaha masaakiinta iyo dadka waayeelada iyo birimageydada oo ku dhameeyay maasha allah tabaarak raxmaan maanta si fiican looga dukaday laysku soo baxay aad iyo aad ugu farxa maasha allah tabaarak raxmaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaan meel kastoo ku noolnahay na ammaansado na xifdiyo qofka muslimka saxda ah waxa waaye qof aan ummadana dhib u geysanin oo dhibaato aan jeclayn in ayaga loo geystana aan jeclayn maasha allah tabaarak raxmaan marka ilaahay hana dhowro axbaabi xabiibaati markan taas uga baxo maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado laba qiso maasha allah cajiib jiddan ah marka hadduu ilaahay idmo marka waxaan rabaa inaan aragtay maasha allah ku socdo qofkii raba inuu qiso ila qaybsado waxaan ka codsanayaa inuu igula soo xiriiro whatsappkayga because whatsappka kharash uguma socdo midda xigtana waxay tahay wuxuu ka heli karaa telephone numberkayga videoyaashaydii hore sida kii saddexaad oo kan hadda aan soo duubay midkii ka horreeyay kii kasii horreeyay oo kale waa laga helayaa insha allah wuu ka buuxaa telefoonkayga aslan mataqaanaa pagekayga youtube-ka halkaasaad igala soo xiriiraysaa farinaad ii dhaafaysaa anaa kula soo xiriira marka insha allah waxaan ku soconaynaa qisada hadduu ilaahay idmo axbaabi waxay tiri abaayo waxaan haystay caruur oo maaragtay ii sheeg badan waxaan ku noolahay yurub wadanka yurub aan ku noolahay waxaan go-aansaday tiri ilmaha inaan soo qaado oo diinta soo baro marka waxay tiri waan soo baxay kenya imaaday kenya markaan imiday tiri ilmihii madarasooyinaan geystay anigana waxaan iska bilaabay tirna iska cibaadaysto maasha allah tabaarak raxmaan ayadina isku dadaasho ilmihiina ay ku dadaashay usoo baxday marka waxay tiri iska cibaadaystay bil ramadaanaa soo gashay tiri muddo markaan joogo bil ramadaanaa soo gashay bishii ramadaanta marka iyadoo lagu jiro waxay dhahday ilaa amarkiis jaam ee iga noqoto macnaa waa waxba iska kee xirxirma tiriyo xeer waxaan gaaray tiri xataa madarasada ilmahayga la soo bursho lacag la-aan iskuuladii iyo meeshii macadeeda laga soo buriyay marka waxay dhahday abaayo xaaladaasaan ku sugnaay waxaan iska dhaadhacsii tiri oo niyadeeda u sheegay erey cajiiba horun heshiis u sheegtay waxaan ku yidhi tiri allihii shal halkaas kugu israaqay maantana wuu kugu israaqi karaa halkaan exactly sax waa runteeda marka waxay dhahday waxaan eriyay tiri waxba ha cabsan ha isdhihin cariirigan ilmahan saan mataqaanay ma ahaan jirin iyo wax lamid ah hore u soco ma u joojin abaayo cibaadadeeda iska sii wadatay bis waxay dhahday waa baxay waxaan damcay tirnaa isdabaro horta qarashay suganaysa bishii $1 meel ka suganaysay markay bisha dhamaatay $1 meel ka suganaysay waxay dhahday marka abaayo waxaan u tagay tiri isna eedaday ah waxaan ku yiri tiri eedo $100 isii ilaa ilmihi madarso laga soo baxshay waxaan rabaa inaan koobo oo aan qisada labaad ayadana soo deeyo wada dheer yihiin marka inaan soo koobaan rabaa waxaan u tagay tiri eedaday waxaan ku yiri tiri eedo $100 deen isii okay $100 eed isoo siisay dhahday wiila soo wacay tiri xaas ah wuxuu ii sheegay tiri maanta inuu anaga naga daran yahay afruba haysaninba marka 40 ka sii dhahday qisadan waxay qosaysaa sadaqada yaqiinta waxa waaye waa wax ilaahay aad ka sugtid oo dhab ah oo aamintid inuu ilaahay ku siinayo yaqiinta hadilsanina 100 jeer waa idin sheegay axbaabi wallaahi maasha allah tabaarak raxmaan waa wax inaan isku baraarujin u baahan waxay dhahday marka abaayo waa soo baxay eedada waxay ku tiri naama waalan tahay oo adigaaba hadda dhaqaale la-aan ahaaye maxaad u mataqaanay maxay tahay waa adiga $40 dhibt eedo waxa waaye wiilka waa iga dareen waa xaasadana maaragtay ii sheeg waa dhib ma lahan 40 waxaa soo baxay dhahday marka soo dhaqaaq 10 dambaa lagu jiraa dhahday marka waxaan dhahay tiri gabaraan waxaan ku tiri $500 ii soo dhiib bisha markay dhamaato macnaha waxay rabtaa kunkaas u imaanaya abaayo inay ku kala dabarto lacagaha ay qaadanayso lacagta ay igu tiri gabadha lacagta ay soo turtay tiri iyo madrasadii iyo wixii inay kala dhibtay rabtaa abaayo marka waxay dhahday gabar walaala ay timid oo safar ah waxay ugu tiri deen isii $500 $500 mahaana siro taagani bal allahna barakee fariiso
nay way bidid adiga maaba lacag la-aan ku haysato dadka waxaa laga aaminsayaa meelaha ka yimida inay lacag jawaabka ugu jirto may gabadha way iga fuqi diiday tir nag inta markaa u mari waay gabadhuna ay safarta waxaa isiri tiri okay 250 qaado 250 ii reeb because ilmihii ciidii wixii dhan iga sugayeen iyo madrasadii wixii dhan hay lacagta timiday tiri waa baxay tiri iska dukaday anoo meesha iska fadhiya taleefon ii soo dhacay dhaqad waxay soo wacday tiri gabar abaaya ah uga soo tagtay kaararkeyga waxay ugu dhahday tiri accountkeeda inay fiiriso waxay ugu dhahday tiri abaayo ma fiican tahay khayr alxamdulilah lacagaa kuugu jirto accountka maasha allah ilaa khayra ku siiba sugaayay wayba soo degdegta camal may lacagtan $1,000 miyaa aan sugaayay maya kunka aa sheegays maxay tahay kun aa sheegay 10 kun waa ka badanta yaa 10 kun dhan wallaahi bilaahi ilaahay qofku rabo israaqada horta qofka yaqiinta la imaado waaba la ogyahay taasaa xaqiiqi ah wax walbo la yaqiin ula timaado xanuun tahay hadii tahay caafimaad oo macnaha xagga nooca jeceshahay wax walbo oo caqabad oo ku haysto yaqiin hada ula timaado si dhab ilaahay inta u tugtid aad aamintid inay waxaanu ku bedelmi doonaan waxa aad jecesho khayr ah kugu bedelmi doonaan ilaahay insha Allah ta'ala bin Allah karim kugu bedelma akid la shaka fiha wala shaka ma ku jiro alxaasil gabadhu waxay dhahday waa yaaba waxaan ku iri tiri indhahaaga waaye ord gabartaada intaa wacdid ha ii fiirisa iyada $10,000 ka badan taa maxay wax aniga aan hadda sugo meel account aan ka sugay malaha account ilaaha loogu soo dar loogu soo riday markaas tiri wallahi may gabartaa loogu yeeray gabadha fiirisa run waaye lacag badan ku jirto okay xagee ka timid marka lacagtaano waa la fiirshay waxaa la ogaaday gabadhan abaaye ee Afrika joogta ciyaalka soo kaxaysa hada koor shaqo aaday shaqada irida agteeda iyadoo maraysa madaxa jug uga dhacday madax markay jug uga dhacday lacagta waxaa loo siinayay xaquuq ahaan macnaha madaxeeda jug yar ka gaartay xaquuq ahaan lacagta loo siinayo qoladaas aan ku soo dirtaba balka sheekay waa baxay tiri lacagihii markay heshay $3,000 ugu yaraan waa sadaqeeyay dhahday wallahi shalow ma haysanin dhahday because maantana ilaaha isii allahumma lak alhamdu wa lak shukr abaayo way ku soo najaxday waxay tiri najaxaadeyda maalinta ka dambaysa ma sha Allah khayrka nimcada iyo zaaid ilmahayga indha qabowsiga diinta say igu barteen hadda waxay tiri ilmahayga ilmo roon waay diintii barteen waa ilmo mataqaana cilmiga ma sha Allah diinta islaamka wax ka yaqaan oo kala arag ma sha Allah tabaarak rahma wallahi way khayr gelisay because waxay khayr gelisay waxay tahay gabadhan go'aan ay qaadatay gabaran go'aan qaadanin heer ma gaartaba ilmahaas qirada yaa la eedin dibka ma lahan dambi ma lahan ayaga mas'uul waa qof kasta mas'uul waaye wuxuu mas'uul ka yahay wixii loo dhiibay ma sha Allah abaaqi sida halkaas ku dhamaatay ilmaheedii Ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka u hagaajiyay inta kuwana ma sha Allah tabaarak rahman waxaan la fili kareynay noqday ilmaha ma sha Allah diintooda wuxuu gabadhan kale walaasheen waxay tiri ayadana bardo waxay tiri ninkeyga Yurub soo jiray ninkeyga markuu Yurub soo jiray tiri sharciyadii wixii oo dhan uu ku daali tirso lagu keeni lahaa markaas salaad duka jiray tiri ilaahan bari jiray waxaan dhihi jirtay ilaahayo iisoo sahal tiri meeshaan tagay ilmaheygii anigi markaan tagay maxaan bala kulmay tiri wax kaaf iyo kala dheeri ah nolol aan ahayn oo dhib badan oo waxay tiri ilmihii iskoolka wax kale laga soo siina aniga raali ka ahayn oo diinteeda ka soo horjeedo oo waxay tiri isku dhaqamin oo way tiri waa rafaad oo wax allaale waxaan qabtaan garan waayay tiri meeshi markaas waxay tiri ku wareeray go'aan qaatay tiri marka waxaan dhahay tiri walaalo anigu meeshan ma rabo waa ku rafaaday meeshi aan farxad soo aaday marka please waa inaan iska laabtaan rabaa ilmahayga celiyo maya baayo sharciga qaato walba maya sharcina ma rabo sharci waa kii ilaahay gabadha waxay tiri marka abaayo heeday waa leela yaab gabdho badan waxay tiri yimideen xaafadii oo dhan marka waa baxa oo soo baxay sharciba ma helin waa ogahay inaan sharci haysanin soo laabana marka soo ku soo noqonay ninka laga wadana inta waay maya ereetir ninka Ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka ahay haduu shalay buu nooga baqanayo na keenay haddana haduu noo soo jeedin cidna nagama leexi karto
hadduu noo soo jeedina cidan nooma soo jeedi karto marka meeshaan meelan aniga kusii noolaa kara ma ahan ay dhahda gabadha hadda afrika igala soo xirtay soomaaliya weliba tagtay maaha xataa ka meelaas maasha allah tabaaraka raxmaan gabadhii abaaya ahayd waxay tiri go-aanaa iska qaatay salaatuleylan dukada waxaan eriya tiri sidaan ilaahu shala kuu bari inaa ninkayga iigeyso ilaahu haddana fakada ahey rabbi raxmaan oo iwad alxaasil waxaan eriya tiri ilaahayo guri masaajid kasoo horjeedo madrasooyin kaala araga ilmaha iiga ii fiican gurigaan ka cabsanayna dhexdiisa oo amnigiisa sugan yahay oo waxay tiri ilaahu ummadaada ii saqir gabadhi inta ilaahay aan ka bari wallaahi waxay tiri inayna sikin iga soo daahinay tiri sikin waa wada helay dhaq naagihii dhammaan afkay gacanta saartay waa lee wada xanta waa lee magaciisa waxaa leeyahay naama waa la naamaanta naagta waxbaa ka khaldan see naagta u laabatay iyadoo sharci la-aan waxay tiri gabdhihii ayaga ahay gabar ka mid maanta tiri maasha